kulanti wacan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararka ugu waaweyn ee Soomaaliya caalamka qodobada ku keenan waxaa ka mid noqon doona kulan degdeg ah oo ka dhacay magaalada Ankara ee wadankaasi Turkiga waxa uu dhaxeeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ganacsiga lagu magacaabay Axmed Taajir waxyaabaha ugu weynsan ee xilligan ay ka wada hadleen ganacsadaasi sida weyn loo aaminsan inuu ka mid yahay ganacsada ugu waaweyn ee dalka madaxweynihii hore ee Soomaaliya kulanka abaabulin ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo la halkaas ku wadaan ayaa daawo doontaan waxaa kaloo daawo doontaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo ka shaqeeyay qabanqaabada diyaargarowga ku aadan cid markaas lagu bedel lahaa Cali Yare oo maanta ka soo muuqday kulan wasaaraha ku tagay xarunta dowladda hoose ee maamulka gobolka Banaadir waxaa kaloo idin soo gudbinaa madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaaben waxa uu soo gaaray magaalada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas uu gulufkii ugu dambeeyay dhanka dhaqdhaqaaqa al-shabaab ay ka bilaaban doonaan ay ka wadaan meelaha Afgaal qodobadaas aan ku faahfaahin doonaa warar kale caalamka diblomaasiyadda oo qaybka Ruushka oo magaalooyin caasimad u ah wadanka Ukraine maanta gantaalo culus ku weeraray fadlan haddii aad nagu cusubtaa subscribe kuna tahay gambarka furno share gareeya saaxiibadii meel kasta joogaan idinku commentiga like iyo rib iyo aad baad u mahadsantiin had iyo jeer si aad nala jaan qaadaysaana aanu ku bilaabno daawadayaal wadanka Turkiga waxaa ku sugan nidaamkii hore ee Farmaajo uu hogaaminayay oo markaas tiimkii nabad inoo ahaa waxaana siyaasiyiintooda inta ugu badan ay halkaas joogaan ay kulamo ay la yeesheen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kulamadaas waxa ay la qaateen qaarkood siyaasiyiin iyo ganacsato qaybaha kala duwan ee bulshada waxaa maanta baraha bulshada lagu soo bandhigay sawirada madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ka muuqato xaalado markaasi aad u duruufaysan qaarkoodna lagu tilmaamay ahayn sawirada baraha bulshada lagu baahiyay ayaa ka muuqanayay in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ka muuqatay xaalad duruufeed kadib markii xilka uu ka maqnaa muddo 4 bilood oo kaliya ama ku dhawaad 5 bilood oo xukunka imika joogo madaxweynaha hadda xilka haya Xasan Sheekh Maxamuud kulamada uu la qaatay Axmed Taajir ganacsadaha Soomaaliyeed madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo siyaasiyiinta nabad inol wadanka Turkiga ayaa markaas xogaha ugu midsan waxay sheegayaan in ugu yaraan dhinacyadu ay isku qancin doonaan si dib ugu soo kaban karaan hanaanka doorashada ee 2000 markaasi 24 iyo wixii ka dambeeya markaasi 2025 oo doorashada wadanka Soomaaliya markaasi inay dib u dhacdo la filayo inkastoo tiimka Damudajid la filayo inay sameeyaan muddo kororsi kii ay sameeyeen Farmaajo tiimkoodii hore ayay taas dadka shacabka Soomaaliyeed ayaa dhamaantood ka wada baraarugsanaa dhinaca kale haddii ay eegna saaxiibada wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ka shiraya wararka ku saabsan isbedelka dhanka maamulka gobolka Banaadir xilli maanta wasaaraha uu soo booqday xarunta dowladda hoose ee Xamar waxaana wararka ugu weyn ay sheegayaan inay tahay in wasaaraha uu ku qanciyay duqa Muqdisho shakhsiga lagu bedelayo inkastoo baasha abargidina kursigaas ay ku heshiisay wasaaraha ayaa la sheegayaa in ay qayb uu ka yahay hanaanka loo diyaarinayo xilwareejinta maadaama maanta Cali Yare qayb ka ahaa duqa Muqdisho Yuusuf Madaali iyo wasaaraha wadanka Xamse Cabdi Barre iyo soo kanatay Cali Yare tiimkii hore nabad inol ayuu ka harsan yahay asay maanta nuuci gridi ayaa markaas baraha bulshada lagu malaysan jiray ayuu kaga soo dhex muuqday waana siyaasi mucaarada oo dowladda mucaarada marka kalena markii loo eegana waa shakhsi markaas hadalhayn badan dhaliya asagoo maanta la arkayay sawirada iyo markaasi muuqaalada uu ka soo dhex muuqday ee gudoomiyaha gobolka Banaadir wasaare Xamse Cabdi Barre maadaama aysan ahayn tiim isku siyaasadda oo la ogyahay Cali Yare nidaamkiisii in ay kala dhaween ay qaarkood ku sugeen wadanka Turkiga halka ugu qalan ay ku sugeen sida milkiilaha dowladda milkiilihii dowladii hore Fahad Yaasin Xaaji Daahir Abu Musan al-Quransani kiisa waa Camaara Fahad Yaasin Xaaji Daahir ayaa markaas ninkiisa dalka qadar ku suganaa dhinacyada waxaa ugu muhiimsan waxyaaba ay ka hadlayaan sidii markaasi shaqada gobolka loo xoojin lahaa wasaaraha isagoo markaas uu guurayay u kulkulay shaqooyinka loo hayo bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir yaa kulan ay wada qaateen hoggaanka maamulka gobolka Banaadir waxa ay kula dardaarmay in la dardargeliyo shaqooyinka loo hayo bulshada caasimadda ee Muqdisho marmarkana aan aadno gobolka Shabeellaha Dhexe wararka qaybihiisa dhaxan waan isoo soo gaana daawayaan haddii aad nagu soo subscribe kuna saar oo gambarka furo share gareey saaxiibadii meel kasta joogaan idinku commentiga like aan inoo reebaya aad baad u mahadsantahay hadii jeer sida aad noo dhiirigelinaysaan iyo sida aad nala socotaan wararkeena halkan aan ku soo baahino madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaaben Xuseen wuxuu hogaaminayay amaanta gaarid degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas oo dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyay ka wadaan baasha Afgaal Cusmaan yufdigiisa waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay degmada xeebeedka ee Cadale xildhibaano maamulka degmada saraakiisha ciidamada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Cali Guudlaaben madaxweynaha Hirshabelle ayaa sheegay in socdaalkan uu ku yimid degmada Cadale uu ku duwan yahay socdaaladiisii hore isagoo sheegay in safarkiisa uu ku qoto markaasi dardargelinta howlgallada lagu xoreynayo deegaanada iyo degmooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe madaxweyne Cali Guudlaaben ayaa saraakiisha iyo bulshada degmooyinka gobolka ugu baaqay inay u diyaar garoobaan howlgallada lagu ceeltayo al-shabaab ee uu haatanba
ee u taagan xasuuqa shacabka Soomaaliyeed buu yiri tegitaanka madaxweynaha Hirshabelle Cabdalle ayaa ku soo beegmaysa saacado kadib markii xalay ay gaareen ciidamo badan oo ka tagay magaalada Muqdisho u badan beesha Abgaal Cusmaan halkaas oo gurufkii ugu dambeeyay ay ka wadaan wararka gobolka ayaan aadinahay markaan waan u soo laabanaa wararka arrimaha Soomaaliya warar ku saabsan magaalada Muqdisho bakaaraha nin hubeysan oo dad shacab markaasi weeraray ayaa goor ma qodobta yeeshee arrimaha gobolka hadii aan eegno ciidamada Ruushka ayaa fuliyay weeraro mar qura lagu qaaday magaalooyinka dalka Ukraine oo ay ku jirto caasimadda dalkaasi Kiev wararka ayaa sheegay in qaraxyo waaweyn ay ka dhaceen magaalada caasimadda Kiev iyo dhammaan magaalooyinka dalkaasi Ukraine iyadoo weli ay socdaan gantaalaha ku hoobanaya magaalooyinkaas oo lagu qiyaasay ilaa imika in ku dhow 50 gantaala wararka Ruushka ayaa argos yimid kadib markii la qarxiyay buundada caalamiga ah ee isku xirta Ruushka iyo gobolka Crimea oo lagu eedeeyay inay fuliyeen sirdoonka dalkaasi Ukraine magaalada Kiev waxaa ku dhintay 8 qof iyadoo ay ku dhaawacmeen ilaa 24 kale sida ay sheegtay waaxda gurmadka degdega ee Ukraine madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa goorsi horeysay sheegay in duqeyn culus lagu soo qaaday dalkiisa Ruushkana ay doonayeen in dalkiisa ay baabiyaan shalay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin wuxuu ku eedeeyay inuu sirdoonka Ukraine ay sameeyaan waxa uu ku tilmaamay fal argagax isagoo sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan kana jawaabi doonaan weerarka waxaa qayb ka diyaaradaha iswada ee daroonka oo iyagu markaasi miinaysan laga hagayo inay markaasi fuliyaan weeraro qaraxyo ah ilaa 8 ka mid ah diyaaradahaas ay Ruushka ay u adeegsadeen weerarka ka socda wadanka Ukraine markaan haddii aan eegno aan ku soo laabano wararka Soomaaliya suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho oo ka mid ah suuqyada ugu waaweyn ee dalka ayaa nin hubeysan waxa uu markaasi weeraray dadweyne halka ku ganacsanaya aseeshee ka raacdo waa la yaabay in basoolad hubeysan ayaa lagu qabtay suuqa weyn ee bakaaraha caasimadda Muqdisho kadib markii uu qalqal geliyay ganacsada suuqaasi ninka ayaa la sheegay inuu weeraray bakaaro ku yaala suuqa bakaaraha isla markaana uu rasaas ku riday goobaha ganacsiga waxaana markaas kadib ka hortagay dadweyne careysan iyadoo markii dambena ay gacanta ku dhigeen ciidamada amniga wararka intaas ku daraya in ninka hubeysan uu ka tirsanaa ururka Daesh ee Soomaaliya ujeedkiisuna ahaa inuu cabsi geliyo ganacsada si ay u bixiyaan lacago baada ciidamada musuqada ayaa lagu wareegay ninkan waxaana saraakiisha booliiska saldhigga Horwadaag ay sheegay inuu baaritaan ku socdo lana ogaaday inuu ka tirsan yahay ururweynaha Daesh ee Al-Qaacida hoostaga gudaha wararkii waaweynaa ee Soomaaliya caalamka kala socoteen channelkeena daawadayaal waa anaginta haddii aad ku subscribe kana soo halkan baraalkan afro una sii sharaxay saxaabadii meelkasta joogaan idinku commentiga like noo rabiyo kuma sidin la socoshada iyo warar kale halkan aan ku soo gudbino na dhiirigeliya daawadayaal oo nagu dhiirigeliya subscribe like share aad baad u mahadsantiin